marka koowaad waxaan u mahadnaqayaa maamulka iyo macallimiinta iyo madaxda jaamacadda Jigjiga kaliya laab Dr. Hashim Khadar Ilyas adu kala reebi maayo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa lama hadlayo siyaasiyiin lamana hadlayo dad kala ujeediya afkaara lamana hadlayo taageerayaal urur taageerayaal kooxeed taageerayaal gobol taageerayaal xisbi waxaan la hadlayaa rajo waxaan la hadlayaa iftiin waxaan la hadlayaa mustaqbal waxaan la hadlayaa barbaar la sugayo waxaan la hadlayaa haldoorkii hoggaankii iyo hormoodkii barri walaalayaal saaxiibayaal adeerayaal nolosha waad u daayartiin fursadaha iyo jaanisyada waad u daayartiin shaqooyinka waad u daayartiin guusha waad u daayartiin magaca iyo muuqashada iyo mansabka iyo maalkana waad u daayartiin intaas oo dhanna waxa kaliya teedanka xiga waa aqoon iyo dadaal marka damaca qayrka yahay dunidhan maare adna maaha dib u guur oo hankaaga duuduub darajada wax kaa xiga oon dadaal ahaan sheeg in badan oo idinkoo kala ayaan jaaniska iyo fursadaha ay hesheen aan helin in badan oo idinkoo kala ayaan waqtigu saacidin maalmaha iyo marxaladuhuna soo dhaweyn waradaad waxbarasho bilaasha hesheen haddaad doon iyo dheef iyo hoy bilaasha hesheen dhalinyaro fara badan oo da'diina ah oo jeclayd inay waxbartaan noloshana tadawur iyo horumar ka sameeyaan ayaan riyadoodu u rumoobin oo ku nool dhulka Soomaalidu degto oo barkoodna dawlad la'aan ay heshay barkoodna dawlad xumo heshay hadaa waqtiga ka faa'iideysan weydaan macallimiintii waqtiga fiican tacabka idin soo geliyay iyo waalidkii dhabarka iyo dheega idin saaray ee dhiigga iyo dhuuxa idin shubay abaalkooda ma gudi kartaan kamana soo bixi kartaan mas'uuliyadda naftiina iyo noloshiina iyo mustaqbalkiina idinka saaran haddii aqoonta iyo fursadaha aad hesheen ee isku kiin raacay ka faa'iideyn weydaan 2022 100,000 oo reer Mareykan ah ayaa isku diiwaan galiyay safraan soo noqosho lahayn ay ku tagayaan dayax ujeedadii u tagayaan ha saxsanaato ama ha qaldanaato waxa suuro gelisay inay tahay aqoon baad garan kartaan aqoontu waa ta keentay laba wiil oo hooyo iyo aabba wada dhaleen in midna naftiisa aan waxba laga weydiin midna dunida wax laga weydiiyo aqoontu waa ta keentay in koonku noqdo maqsin waa ta tiknoolajiyada casriga ah ee maanta dunida ku shaqeyso hirgelisay Soomaaliduna waxay ku mahmaadaan ninkan taa ka dhididin taasuu ka dhididaa oo macnaheedu yahay ninkan maskaxda ka dhididin muruqu ka dhididaa haddaad aragto dal horumar sameeyay marka hore waxa uu horumariyay aqoontiisa iyo jaamacadihiisa waxaana dhisay garaadka ummadiisa dal kastana waxa ka qaldama halka laga saxaa waa jaamacadaha horumarkuna maaha jaajuur iyo dhoobo iyo niis iyo jiingad la saarsaara iyo biriisho dhaadheer iyo daara dhaadheer waa bini aadam la dhiso war siday warshaduhu soo saaraan dawooyin iyo cunooyin iyo qalab kala duwan ayay jaamacaduhu dad u soo saaraan dadkaasana dunida wax ka bedela wana idinkoo kale inta badan waqtigan xarumaha iyo goobaha adduunyada laga hagaawa jaamacadaha daraasadaha iyo cilmi baarista ay sameeyaana waa kuwo
cilmigii jiray xaqiiqo cusub ku soo kordhinaya ilaahayna quraankiisa waxa uu ku yiri allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam waan idinku dhiiri gelinayaa waana filayaa imikaba ina samaysaan daraasado iyo cilmi baarisyo kala duwan roobka iyo raxmadda ilaahay shuba ee cirka uu ka keenaa badda iyo bariga si isku mid ay ugu daan bariga ama dhulkase waxay ka soo saaraan nabaad iyo dog xataa haddii ay ciidu qallasho balse biyaha roobka ee ilaahay cirka ka keenaa biyaha badda ee dhanaan waxba kama bedelaan adigana noloshaada cid kale waxba ka bedeli mayso haddaan aqoontu kaa bedelin adna aan isbedelin haddaad imika xaflad aroos qabato ood ka qayb gasho soo ma qiyaasi kartaan dareenka farxadda leh ee raynraynta leh ee qosolka leh ee qofka ciyaarka leh ee xafladda aroosku ay wadato haddaad si aas ama geeri tagto waa garan kartaan in shucuurtaadu taa ka duwan tahay war sidii xafladda aroosku kuu xasuusinayso dhalaalka iyo hawooyinka nolosha aaskuna kuu xasuusinayo in aakhira jirto noolana dhintay yahay adigana maalin maalmaha ka mid wadku kugu soo xaadirayo aqoontu kuu xasuusiso in dalkaaga iyo dadkaagu ka mid yihiin dunida saddexaad oo dama adiguna iftiin iyo tooshiyo nal daaraad u tahay qof kasta oo xorriyadda u halgamaa si uu xorriyada ugu noolaado dhimasho ugu badheedhaa qof kasta oo nabadgelyo u halgamaana si uu nabadgelyo ugu noolaado naftu u huraa qof kasta oo nolol wanaagsan u halgamaana si uu nolol wanaagsan ugu noolaado waxbuu u bartaa war waa su'aala waxa baranayso iyo cilmigii aqoonta aad baranayso ma waxaad u baranaysaa kaliya inaad ku shaqaysato mise waxaad u baranaysaa in lagugu yeedho hebel waa jaamici mise waxaad u baranaysaa in aqoontaasi dadkaaga iyo dalkaaga wax ku soo biiriso saddexdaa jaanisba haddaad wax u baranaysaan saddexdiiba wada haysaan haddaad wax u baranayso in hebel waa jaamici iyo waa aqoonyahan lagugu yeedho tuulada yar aad ka timid iyo magaalada aad joogto maqaaxiyaha ku yaalla subax hore ku soo kala tay dheer iyo faylna soo qaado dadkuba ay ku odhan haddaad se wax u baranayso aqoonta aad baratay inay noqoto mid ka beddesho wax dadkaaga iyo dalkaaga iyo naftaada waa kartaa adayna kugu xiran tahay haddaad waxse u baranayso inaad ku shaqaysato waayi maysid hay'ad yar oo aad ka howlgasho oo report kulba 4 beesha ku dirtood ku dhamoodaato qof aqoon-yahana oo PhD ama master sita ama degree sita oo waxba ikhtiraacin oo waxba soo kordhinayn oo waxba soo biirinaynin waxba kama duwana akhrista wanaagsan aqoonta abaratay ilmaaday rayaal waxa abuurto oo waxa ikhtiraacdo warninkii leedkan inoo iftiimaya sameeyay 999 jeer ayuu ku guuldaraystay isagoo confuse oo meel fadhiya dad badan ku soo xoomeen waxay weydiiyeen waxa ku dhacay wuxuu ku yiri 9 markii 999 baan ku guuldaraystay dadkii way la yaabeen war shaqo tag bay ku dhaanay timo weynaane wuxuu ku yiri ma khasaarin waayo waxaan bartay 999 hab oo laambadu aanay ku bixin marka qofkay ku xiran tahay waxa uu doonayo iyo waxa uu yahay inaad noqoto qof aan waxba isku dayin waxba soo biirin waxba soo kordhin ama aad noqoto qof ku xisaabtama qof kale noloshiisa iyo mustaqbalkiisa iyo quruxdiisa iyo hantidiisa waxa ka muhiimsan inaad noqoto qof isaga lagu xisaabtamo oo maxaa laga xisaabtamaya xirfadiisa lagu xisaabtamaya oo aqoontiisa lagu xisaabtamaya oo kartidiisa lagu xisaabtamaya umana baahnid halka taagan tahay iyo heerka joogto inaad ku qanacsanaato waxaad soo baahan tahay halka tiigsanaysaa inay kugu qorshaysnaato si hadafkaaga iyo himiladaada aad uga madhadhalisana waa inaad la timaadaa adkaysi iyo dulqaad iyo samir noqo qofka aad rabto inaad noqoto qofka aad rabto inaad noqoto wax kastoo lagu sheegayna
intaana sii sheegin hubso inaad xubsan weydaa shakhsiyadaada waxyaabaha dilayay kow ka tahay war waxaanad garanayn haddii lagu weydiiyo oo aad tiraahdo waan garanayaa ma waayeysid qof soo dedejiya fashilkaaga laakiin waxaanad garanayn marka aad tiraahdo ma garanayo ma weydid qofku sheega yaan dulqaadku kaa dhigin qof damiirku meed yahay fudaydkuna adoo dagan magacaaga yuu dilin ha yeeshee duntaadii ayna tahay qof daacada adigoon ku daalayn dadka kale ka dhaadhici dabcigaagu kaa tahay ha ku sheego dabada noqo qof wanaagsan balse waqti badan ha ku lumin inaad dadka ka dhaadhicisa inaad tahay qof wanaagsan hana sugin cadeed kuu soo baxday ama kuu dhalatay inay kaaga wanaagsanaato ta kuu dhacday haddaanad shalay sidaad ahayd maanta bedelin berrina sidii unbaad noqonaysaa qof kastaana wax kasta uu jecel yahay ma helo balse wax kasta uu ku dadaalo wuu helaa ha ku mashquulin tagtada si aanad uga mashquulin timaadada xaaladuhu way adkaan karaan duruufuhu way qallafsanaan karaan waxbaa si kaa noqon karaa hadday maalintu kugu xun tahay macnaheedu ma aha inay noloshu kugu xun tahay shimbirtu geedka laanta ay kaga joogto xataa hadday jilicsan tahay oo ay la jabaso kama warwarto waayo waxay kalsooni fara badan ku qabtaa baalasheeda aqoontiin iyo qofnimadiin iyo soomaalinimadiin iyo ciddaatiin kalsooni ku qaba qaladaadkuna laba nooc buu leeyahay waa mid qofku wax u leekaadaan wax kale iyo mid bareera mushkilad ma laha qaladka wax ku leekaanaya balse waxa daranka bareerka ah qofkuna haddaanu qaldamayn ma noqdeen qof insaan oo dhammaystiran in la qaldamaa waa dabiici balse waxa daran in qaladka shaqo laga dhigto lagu soo celceliyo ha iskula yaabin inaad qalad samayso balse waxaad iskula yaabtaa inaad qaladkaaga sixi weyday haddii aan caagada culeyskeeda waxaa laga yaabaa in 150 gram ama ilaa 100 muhiimba maaha culeyskeeda dhabtaahi haddaan 1 minute kor u hayo waxba dareemi maayo soo maaha balse haddaan saacad kor u hayo waa hubaalin gacantu idaalayso haddaan se 72 saacadood kor u hayo waxaa laga yaabaa inay gacantu i qallasho hadda culeysku caagadu isbedeli maayo balse waqtiga fara badan aan kor u hayaa waxay ku xidhan tahay inay ku keento xubnaha jirkayga daal kaarkii xanuunkan ay ku soo kordhiso fikirka qaldan iyo walwalka iyo cadhadu waa sida culayska caagada haddaad waxoogaa fikirtood warwarto waxba dareemi maysid balse haddaad 24/7 maskaxda wareejiso waa hubaal in wax badani iska kaa jiidhayaan wardaan dadku dhaxan iyo qabow aanay la gariirin gabood iyo guri samaysta may garteen haddaan dadku gaajoon oonay calooshoodu weydiin waxay ku ridaan geedka midhaha ku yaalla ka gurta may garteen mushkiladda iyo duruufta iyo dhibaatadu waa laga yaabaa inay ku haysato in badan oo mujtamaceena ka mid ah oo dadkeena ka mid ah ayay dhibaatooyinka iyo mushkiladuhu noloshooda ku xidhan tahay oo haddii ay dhibaato dhici weydo aanay noloshoodu suuragal noqonayn tusaale ahaan haddii baabuur banjari waayo haddii taayir banjari waayo oo baabuurku xumaan waayo oo biri ciladoobi weydo ninka makaaniga ama farsamo yaqaankii faruhu laabanaya in mushkilada dhacdo ay xumaadaan ba isaga dani ugu jirta haddaynu sidaynu isku xigno inagu isku aasno adduunyada waxaa jira kambaniyo ka shaqeeya geeriyaha iyo aasaska wardii ciidiba dhiman weydo qofka xafaarka ee xabaalaha qoda shaqo heli maayo in gurigiisa dab laga shidaa uga muhiimsan in guriga ka soo horjeeda laga baroorto sidoo kale muranka iyo buuqa maxkamaduhu hadday jiri waayaan oo dadku isa sudnaan waayaan oo madaxa la iskula jiri waayo ninka looyarkaay cid uu garweysiiyo iyo cid uu garsiiyo midna heli maayo
madaxweynihii dalka masaarida xusni mubaarak waxaa laga yaabaa dalka masar inuu 40 sannadood xukumayay isma weydiin كورن هذين يسكت تكنوا بعد ما سنتين عن قطبة دي كوسي سعودة صوت دور بلايس كما تقنان أمر دور تدا أما محي هذي دورسية نين وضيا أو كم إذا هذا ديوغ دور تيستا أيا جرو يمدي gurigii markii uu hor istaagay ayuu ku yiri liibaan akhwaan wax ma haysan waxa jooga marka guriga gabadh oo iska xinaysanaysa ilaahay baa u nimceeyay halkan ay fadhidaa waxba kama qasna waxa ku tiraadar waxsan wuxuu ku yiri waxooga calala oo huna haddana ma haysa haddana markaas ku tiri waxsan haddana mar labaad buu ku yiri koobiya haddana mar saddexaad ay ku tiraadar waxsan kadibna wuxuu ku yiri xaajiyo odaygaagi ma joogaa way xanaaqday maxaa ku baray odayga maxaad ka doonaysaa indhaha kaga dhacday wuxuu ku yiri daweydinkan wax bay ma dhaantaan ma wada dhuurtay tagi lahayni ma joogaa ruuxan idin leeyahay waradinkiiyo ka suuqa jooga ee aqoonta iyo cilmiga ka aradan haddaad isku dhaqan iyo isku sifiyo isku tallaabo iyo isku si noqotaan waa mushkilad war aqoonta aad barateen ee waqtiga fara badan ku bixiseen yaana idinka noqon mid ku faana marka deeq lagu horay tahay hooy daba soco dookhaagu waa dookh ninku dilay kiraystee yaan duunya xilashadu kaa ridin dalluuntoo duruufuhu la haysta iyo wax madiide kaa dhigin danley iyo adoo noqon baahi ruuxa lagu dago marna doonis ruux kale ha u gelin dunuubtoo dadka ha isku waayina fushataada daayacan marka uu qofku gaboobo wax badan baa horta ku dulduma waxba noloshiisa kama bedeli karo balse inta aad yar tahay ee aad dhalinyarada tahay ayaad noloshaada wax ka bedeli kartaa oo aad dooran kartaa berri sida quruxda badan u noolaan doonto haddii Allah awood leh kugu simo suugaan baana tiraa arrintii sindheernimo kugu seegtay waa tii هذا سين عدالة سببتي ذو جوكتي شجاب اللي يجي شكيني من حمالينا وتولسي وذا كذا وشق استو بابورتي تمادى بحر كرجع أيو ويمدني من حمال لماذا كعصبي وحده معي بابور كان سبر كاه يرجع يعني الوح كرجع ويديدي وحده معي وحكوا قالوا بابور كيبو جنبي كسكلا الذي mid kamid ah xamaalintii xagga sare saaran ayaa ul yar qaaday markuu soo qabsado fanaxyadu kaga jiidaa gacmaha tab iyo xeeladu uu kuru waay bartaas uu bax markaas uu hin qabsaday odayba soo maray ninkii ooyay waxa ku war maxaa dhacay xaaladii markaa ayuu uga waramay markaas uu ku war hadii ma waxa uu ooyay maxaa la yiri waay war haddaad wax baran weydaan oo aqoonta ka faa'iideysan weydaan wallahi wala li rabaan ana idin leeyahay maxamed xusni mubaarak madaxweynihii hore ee dalka Masar 40 sanadood ayuu dadka reer Masar xukumayay oo uu qasriga madaxtooyada ka talinayay meel 800 tallaabo halka dadka reer Masar looga taliyana waxa yaalay jeesadkii ninkii kibray ee ilaahnimada sheegtay ee quraanka la inoogu sheegay ee fircoon jeesadkiisii maxamed xusni mubaarak kuma cibro qaadan kuma waana qaadan mucjisadan rabbaaniga ah ee garabkiisa taala waxaba u damcay dadku 40 sanadood soo hor joogay inuu ciyaalkiisa u tababaro kursiga ku wareejiyo dhashiisa iyo dhalaankiisa wax barashada aqoontaad barateen yaana idinka duwin dadkiina dalkiina diintiina damac inda la'ana yaana idin gelin waxaan idinku waaninayaa waxay suhaanshihiina hoose ee reernimo waxay suhaanshihiina hoose ee qabiilnimo
waxay su'aanshihiina hoose qolanimo waxa ka muhiimsan waxay su'aanshihiina guud ee qoomiyadnimo ummadnimo haddaad aqoon-yahan tahay ma tiid ingiriis mana tiid kuuriyaan waxaa tahay muwaadin u dhashay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ku faan Soomaalinimadaada ku faan jiritaankaaga waxaan idinku boorinayaa inta isku kiin soo jiida ee shacaylku ka mid yahay ee isxurmayntu ka mid tahay ee istaakulayntu ka mid tahay waxaan idinkula dardaarmayaa inaad ka fogaataan dhaqannada liitay qabyaaladu kow ka tahay taariibka laba ka yahay waxaan idinkula dardaarmayaa acmaasha wanaagsan ee soonku ka mid yahay ee salaadu ka mid tahay ee sadaqadu ka mid tahay ee u dhaganugeylka waalidka uu ka mid yahay ilaahayna quraankiisa waxa ku yiri waqadda rabbuka an la ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxa aad u yar abwaaninta waxyaalaha uu ka hadla education is powerful. It offers you more opportunities to become successful in the future. When you learn, you grow. Then you expand your horizon to those who are in need. Education is something that no one can take away from you. It is yours to keep forever. Waa wuxuu abwaanku ka hadlay weeyaan munaasabadan qaaliga ah waxa igala soo shaqeeyay rag badan laakiin impactiga badan waxa ku qaatay ama inay eventigan uu hirgalo waxa ka dhigay saaxiibkay Khadar oo rabo inuu dhowr eray yiraahdo xafiiska madaxweynaha fadlan ila soo dhaweey Khadar. Assalamu alaikum. ugu horeyn waxaan u mahadnaqayaa abwaankeena qaaliga ah abwaan xasan duxul laab saalax run ahaantii intii aynu meesha fadhinay wax aad u weyn baynu ka faa'iidnay farxad weyn bay noo tahay in abwaanku uu jaamacadda Jijiga soo booqdo kadibna uu la hadlo ardayda waxaan hubaa in badan oo idin ka mid in ilaa waqti xadarkan niyadiina iyo maskaxdiina ku soo noqonayaan erayada wadin lahaa wax badan baanu ka faa'iidnay waan uga mahad celinaynaa boqol jeer ugu dambeyn erayo badan ma dhahayo laakiin kaliya waxaan odhan lahaa dardaaranka iyo erayada uu abwaanku noo sheegay inaad ka faa'iideysataan idinkuna aad noqotaan arday wanaagsan oo dadkooga iyo dalkooga wax u qabta intaasaan ku soo koobayaa. Assalaamu calaykum.